taliyihii hore ciidanka booliska Soomaaliya oo noqday dambiile dagaal oo laascaanood ku sugan wuxuu xalay qorsheeyay taatikada ciidan ee xalay 4tii habeenimo maleeshiyaadku ay dagaalka ku soo ekeeyeen xeryaha ciidamada qaranku ay ku sugan yihiin qorshahaasi duulaanka ee uu qorsheeyay taliye xijaar waxa uu muuqatay in uu jabiyay ciidankii Marya Calaska ahaa iyo huwantii maalmahan laga soo ururiyay Puntland iyo Soomaaliya waxa la laayay ilaa 70 isugu jira ciidamadii Marya Calaska ahaa Puntland iyo Soomaaliya laga soo ururiyay waxa la qabtay ilaa 30 maxbuus oo isugu jira 10 sarkaal oo ka tirsan ciidamada Puntland iyo kuwa Soomaaliya waxaana halkaasi ka cad in wadahadalkii xukuumaddu ay waday ay fashiliyeen ciidanka xijaar iyo taliye Cabdi Madoobe waxaana halkaasi ka muuqatay in xisaabtii khaldaneed ay isku soo geysteen taliye xijaar iyo taatikadii ciidan ee xaloo dhan ku soo jeedeen ay ciidanka argagixisada u diyaarinayeen in ay weeraraan xeryaha ciidanku ay saaka uu halkaasi ka raacay jablaxaadle hadda xeryihii ciidanka qaranka Soomaaliland iyo fadhiisimadii ciidanku ay ku sugnaayeen waxa ka baxaysa heestii ahayd waa inaad dhadhamisaa dhibtu qaraadhka ay leedahay haddaba maanay ahayn in ciidanka qaranku un amar loo siiyo si ay u soo afjaraan xaaladda dagaal ee 2 bilood gashay maxaa keenay in maalin kasta ciidanka la weeraro sharciga ciidanku soo ku yahaa in duulaan kasta soo socda halkooda lagu burburiyo